kadib qaraxan masiibada ee ardaydii Soomaaliyeed ee Muqdisho wax ku baranayay loo geystay October 4 ayaa waxaa la sameeyay October 6 ururka dhalinta qaranka Soomaaliyeed. ururka dhalinta qaranka Soomaaliyeed waa barnaamij cusub oo ku mideynaya dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku kala nool dacallada adduunyada oo idil meel kasta oo ay joogaan oo ay ku wadeegayaan Facebook cusub. haddii aad gasho www.dhalinta qaranka Soomaaliya ama Facebook dhalinta qaranka Soomaaliya waxaad ka helaysaa dhalinyaro carrada ka badan oo isla markiiba soo diiwaan gashatay. ma aha urur saldhig meel ku leh, mana aha kuwa xukuumadaha taageersan, mana aha ku ay dowladda ku meel gaarka ah taageersan ama dhinacba u janjeero. ujeedada waxa weeye mideynta qalbi caafimaad qaba oo dhalinyarada mar kale ah si ay u matalaan waajibaadkii SYL markay xaaladdu xumaato sida xornimada ay u keeneen oo kale ayaa maanta loo baahan yahay. dhibka waxa uu gaaro oo ku dhaco dhibaatada ugu badanna ay qabsataa waa dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwa ku dhaawacma, ku dhinta, kuwa qaraxa loo dhiibay iyo ardayda sidaa awgeed maadaama iyaga yihiin waxa wacdigelintan Facebook aad ka qayb qaadan kartaa adiga oo fikradahaada soo dhiibanayo. hamogaanin dhammaan waa maanta maalinkii fursadda Soomaalida adigoo xil cid kasta oo soo sangaraysa Facebook dhalinta qaranka Soomaaliyeed isaga ayay ka mid yihiin. durbo waxaad ka helaysaa dhalinyaro aad u qiimo badan oo kuwan oo hadda aan ku tusi doono Facebook anagoo dhinaca kale ku wareejinayno. mahadsanidin. waa ka Facebook dhalinta qaranka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ku soo biiray. halkani waa Facebook dhalinta qaranka Soomaaliyeed oo aad aragtaan ninka hadda ugu cad ee dhalinyarada ka mid ah waa askariga wejiyo badan ninka la magac baxay oo ku soo gelinaya dhacdo kasta oo Soomaaliya ka dhacdo ugu dambeyso. dhacdooyinka ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayuu u xilsaaran yahay inuu ku soo geliyo. waa askari wejiyo badan, waa dhalinyaro aqoon-yahaniin wadaniyiin Soomaaliyeed oo iskugu timid walaalnimo iyo wanaag iyo mideynta mar kale qaran Soomaaliyeed. waa qof Facebook waxaa kale oo kamid ah isagana dhakhtarka arkeeli karta dabiiciga ahi inuu si dabiici ku daweeyo su-aalihiisna in badan Soomaalida ay ka faa'iido. waa doctorkani oo inta badan kaa siinayo fikrado aada u fiican sida caafimaadka aan u baahannahay oo kale ayaad ka helaysaa Facebookan dhalinta qaranka Soomaaliyeed. waa Facebook kaliya ee maanta matali kara dhalinyaradii SYL iyo mideynta mar kale si loo helo dhalinyaro caafimaad qabto oo ay ka kooban yihiin. haddaba waxaan mar kale cid kasta oo soo sangaraysa ayaa ka ah xubin, malaha madaxdooda kaliya waxa weeye isweydaarsiga oo raahada iyo wanaaga si lagu heli karo mar kale oo qaran ah Soomaaliya oo wadada loo mari karo ayay ka mid yihiin. haddaba hamogaanin daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow adoo soo sangarayn karo oo kaliya Facebook haddii dhalinyaro gabar iyo wiil intaba. waxaana la sameeyay kadib dhibaatadii qaraxii ardayda Muqdisho loo geystay ayaa la sameeyay. hamogaanina daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow dhalinyarada waxaa ka mid ah Dr. Saahid Karama diyaarku waa in wax kastoo caafimaada oo ku haysta kaala taliyo sida hadda isagoo barnaamijyada noo soo daaya cunooyinka caafimaadka ee caafimaadka kuule kuwa caafimaadka aan ku laqayn oo ah dabiibka dabiiciga ahi. hamogaanina haddaba Facebookani oo iskugu yimaadeen maanta dhalinta Soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool. waxaa Facebookan magaciisa uu yahay dhalinta qaranka ummadda Soomaaliyeed. mahadsanidin daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow.